maxaa ka dhex socda hoggaanka xisbiga Hillaac ee dhawaan la aasaasay bal aynu eegno haddaba umuurahan ka taagan aniguna waliba barqiye xisbiga Hillaac waxaa soo kala dhex galay khilaaf siyaasadeed iyo ismaandhaaf la xiriira hoggaaminta iyo jihada siyaasadeed ee xisbiga khilaafkan ayaa ka dhashay arrimo ay ka mid yihiin kala duwanaansho aragtiyeed oo salka ku haya loolan awoodeed iyo xurguf gudaha ah oo ku saabsan sida loo maamulayo arrimaha xisbiga iyo siyaasadda mustaqbalka iska qabsi ayaa sidoo kale ka soo ifbaxay isjiid siyaasadeed oo u dhaxeeya xubnaha xisbiga taasoo keentay in qaar ka mid ah hoggaanka xisbigu ay is-casilaan ama ay muujiyaan in ay ka soo horjeedaan qaabka uu xisbigu u socdo si kastaba ha ahaatee xaaladdu waa mid weli taagan mar uu guddoomiye Professor Axmed Samatar ka hadlay xaaladda waxa uu yiri ila xusuusnaada ciyaari waa gali dambe waxoogaa yeelay khalkhalkee soo galay Hillaacna wax dhibaato leh aniga ma muuqato waa wax la dhaqdhaqi doono haddii alla yidhaa kelmadda dhaqdhaqaab Soomaaliga waad garanaysaan bay ila tahay walow ay xisbigu sheegeen in ay xilkii ka qaadeen kalfadhi ay qabteen ayaa muuqday sida tan Abubakar Xamed Jibriil inuu inoo noqdo guddoomiyaha cusub ee urur siyaasadeedka Hillaac gacantaag guddoomiyihii lagu doortay kalfadhiga Abiib Xaamud oo u jawaabay guddoomiyaha ayaa yiri guddoomiyaha rasmiga ee urur siyaasadeedka Hillaac waa aniga Abubakar Xamed Jibriil xabadda hal dhaqo igana raali aada odayada dhaqanka awdal mar ay ka hadleen ayaa si cad u sheegeen in aan la dhibaateyn xisbiga waxa ayna yiraahdeen waan ka xunnahay xisbigii aan doonaynay inaan ku yeelano wadanka inay beeli isku qabsato tira annaga ka talinayna taa waan diidanahay waana ka soo horjeednaa xisbigana waa la dooran wuuna soo bixi xisbigu golo dhuxuu leeyahay guddi buu leeyahay sida ururada kale u dhisan yahay ururada kaleba isma qabsan beeli kama talinin waxa leenahay golihiisii dhexe ha taliyaan cidda ku suntan ee hormuudka ah ee la timiday ee shirarkii hore iyo haddaba anagu aan ku ognahayna waa Professorka wuxuu ku iib galaya ururku ee ku meel marayaaba Professorka ah isku soo wada duuduub oo waxaa loo dhagtaagayaa xisbiga Hillaac oo ahaa ka kaliya ee ka baxsan beesha dhexe halka uu saldhigi doono